labadii jimce ee la soo dhaafay madaxweyne xasan sheekh ayaa ka istaagay masjidka madaxtooyada waxa uu carabka ku adkeeyay musuqa aafada iyo sida ay uga go'an tahay la dagaalankiisa ma aha markii koowaad ee madaxweynuhu arrinta musuqmaasuqa soo hadal qaado balse waa tiro dhaaf iyadoo ay kordhayaan ficilada argagaxa leh ee boobka hantida dadweyne ee laga diiwaangelinayo dowladda uu hoggaankeeda hayo labadaas khudbadood ee madaxweyne xasan sheekh waxa uu dhaxaysay khamiistii golaha wasiiradu qaraar xukuumadeed oo dhowr boga ka soo saareen xaalka qaynadhaantaasna la daba dhigay hanjabaad goodin iyo guulguulin ku socota cidda wax musuqmaasuqda saddexda jeer ee xiriirka oo madaxweynaha iyo wasiirkiisa koobaad ay iska fogeeyeen musuqmaasuqa boobka hantida dadweyne iyo laaluushka waxay mudan tahay in wax la iska weydiiyo maxaa ku kalifay madaxweyne xasan sheekh in jihadan cusub qaado maadaama hore aan laagu aqoon inuu carabka ku ballaariyo aafadan musuqmaasuqa iyadoo la xasuusta xitaa ololihiisii madaxweyne ee saddexda jeer tan iyo 2012 inaysan ka mid ahayn barnaamijyadii uu ku ololeeyay iyay ku socotaa fariimaha la xiriira musuqmaasuqa dadka Soomaaliyeedse sidee aragti uga dhiibteen maxaa natiijo oo ka dhalan doona waa 4 su'aalood oo dhammaan dad badan ay isweydiinayaan kow midowga Yurub oo taageerada ugu badan siiya Soomaaliya ayaa horaantii sanadkan dhimay muddadii ay socon jireen heshiisyada wada shaqeyneed ee u dhaxeeya iyaga iyo dawladda Soomaaliya hore waxay u ahaan jireen 5 sano waxaana loogu yeeri jiray qorshaha horumarinta iyo iskaashiga qaranka ee 5 sano waana mid ay maamuli jirtay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku dawladaha Yurub oo ka careysan musuqa sii baahaya ee ku dhex laacdamaya dawladnimada Soomaaliya ayaa digniin kama dambaysa siiyay dawladda ayadoo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse la siiyay 2 sano oo tijaabo ah oo ku aadan xukuumaddiisu sida ay u maamulayso mashaariicda horumarineed sida ku cad heshiiska labada bishan ay kala saxideen halka markii hore heshiiskan uu ahaan jiray 5 sano labo qoraalka golaha wasiirada ee ku wajahnaa musuqmaasuqa in madaxweyne xasan sheekh uu ka dabageeyo dhambaal adkayn iyo aqbalaada waxa ay daaha ka rogtay sida beesha caalamku ay u aaminsan tahay in isaga ay ku xiran tahay wax ka qabashada arrinkan doorka arrinkan ee ra'iisul wasaaruhuna uusan ahayn mid xooggan maadaama tuhunka ugu badan ay qabaan hay'adaha iyo dalalka maalgeliya Soomaaliya oo ka soo bilowday ansixintii miisaaniyadda sanadkan taasoo muran badan ka dhashay markii la kordhiyay qoondada wasaaradaha ay joogaan saaxiibada madaxweynaha si gaar ah loogu kordhiyay qoondada safarada iyo tababarada wasaaradahaas waana tuhunka koobaad ee galay wakiilada caalamiga waxaana xusid mudan in miisaaniyaddaas oo haatan ay ku shaqeyso dawladdu ay dhigaysa in la dhimo qoondada xafiiska ra'iisul wasaaraha oo kaliya lana kordhiyo dhammaan dhinacyada kala duwan ee xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradaha ay joogaan saaxiibadiisa siyaasadeed saddex labadii bilood ee la soo dhaafay waxa ay dawladdu la hardamaysay bixinta mushaaraadka shaqaalaha waxaana markii ugu horeysay tan iyo 2017 oo mushaarka shaqaalaha ku meel gaarka ay gaaraan in la bixiyo dhowr iyo 10 bisha halka shaqaalaha rayidka la gaarsiiyay dhamaadka bisha iyadoo hore markii hore ay u qaadan jireen 27 bil walba ugu dambeyn arrinta waxa lagu sameeyay in dawladdu ay waqti dheeraad u baahan tahay si ay u ururiso 30% kaga soo aaday miisaaniyadda mushaarka shaqaalaha ee dawladda maadaama 70% ka hore ay bixiyaan banka adduunka tani waxay walaac gelisay hay'adaha maaliyadda ee adduunka waa ay muuqatay in dakhliga ka soo xaroon jiray Muqdisho oo hadda isku halayn lahayn afar khubarada dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa qaba in dhibaatada dhaqaale ee maanta soo food saartay dawladda madaxweyne xasan sheekh ay ka salka ku hayso shaqaale kumanaan gaaraya oo la dul saaray shaqaalihii hore u joogay maadaama soo laabashadiisa kadib lagu meeleeyay hay'adaha dawladda taageerayaal xigto iyo qaraabo badan oo aan shaqo qaban balse la dulgeeyay shaqaalihii hore u shaqayn jiray sidoo kale khubarada dhaqaaluhu waxay sheegayaan in sahayda safarada xaddaafka ee madaxda dawladda iyo golaha wasiirada mushaaraadka sii kordhaya ee xafiisyada ergooyinka madaxweynaha iyo gunnada billaha ee la siiyay saraakiishii hore u hogaaminaysa ciidamadii u abaabulna habka beelaysan ee ku sugan gobolada dariska la caasimadda ay curyaamisay awooddii dawladdu ay ku bixin lahayd mushaaraadka kooxda ku hareeraysan madaxweyne xasan sheekh ayaa aaminsan in eedaha musuqmaasuqa iyo eexda ay ku shaabadaysan tahay dawladdiisa lagu tirtiri karo in dagaal afka lagu qaado musuqmaasuqa dhagaha shacabkana lagu soo celceliyo balse taasi waxaa ka xoog badan waxa ay qabanayaan indhaha dadka Soomaaliyeed oo aan u baahnayn shaybaar ay ku arkaan qandaraasyada la farsamaynayo dhulka danta guud ee la guranayo shaqaalaha dawladda ee boosaska laga riixanayo iyo ilaahi dhaqaalaha ee loo dhidbay dad gaar ah
maalmo ka hor wafdi ka socda hay'adaha dhaqaalaha adduunka ayaa tagay muqdisho madaxweynaha Soomaaliya ayaa u sheegay inay qabaan walaac xoog leh oo ku wajahan hanaanka deen cafinta inuu wiiqmayo inaysan Soomaaliya gaari karin halkii hore loogu balansanaa bisha July ayay sheegeen taasna ay mas'uuliyaddeeda yeelanaysa dawladda federaalku waxay xubnahan ku adkaysanayaan inay qasab tahay in wada shaqaynta labada dhinac si ay u hagaagto in meesha laga saaro shakhsiyaadka loo magacaabay xilalka ay walaaca ka qabaan lagana saaro geedi socodka dhaqaalaha iyagoo dhalisan xubnaha muhiimka si isla jaanqaadka labada dhinacba uu sare ugu kaco xog baaris kooban oo ay ogaatay Geelan Media inay sameeyeen qaar ka mid ah wakiilada caalamiga ee Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka kalena shaqeeya Soomaaliya hanaanka deen cafinta waxay bannaanka keentay aafada musuqmaasuqa oo korortay 100% wax ka badan 12 bilood gudahood taasoo kaliftay in si toos ah madaxweynaha loogu sheego inuu dhexda ka taagan yahay marxalad uusan xakameyn karin kasoo magacaabidda ilaha dhaqaalaha madaxweynuhu go'aamiyay inuu geysto shakhsiyaad ku dhow ama qaraabo la afa kale oo la diiwaan galiyay waa mashaariicda dalka iyo goobaha laga maamulo oo ina la geeyay shakhsiyaad lagu doortay inay farsamo yaqaaniin ku yihiin dhaca ama boob ka farsamaysan ugu dambeyn rajaxumada maanta ka soo ifbaxday dalka ee uu sababay musuqu waxay horseedeen dhalinyarada ugu badnayd ay tahriibaan ama tahriibayaal sugaal ay noqdaan sanadka 2023 muqdishona waxa ay weeleen doontaa aafada musuqmaasuqa iyo hantida xaraashkeeda oo samada sare jooga 12 bilood oo madaxweynuhu uu xukun ka joogo ku soo dhawow application-ka Faras waa application aad ka dalban karto taksiga kuugu dhow haddii aad ku sugan tahay Nairobi Kenya isla marka aad la soo degto waxaad helaysaa 200 oo shilin taas oo ah Faras Miles waxaad ka dhigan kartaa kaarka ku hadalka internet ayaad ku bedelan kartaa M-Pesa ayaad ku shuban kartaa iyo waliba inaad u xawiisho qoyskaaga iyo saaxiibadaada safar kasto aad raacdo Faras waxa ku ururaya dhibco fadlan kala soo deg Play Store-ka iyo waliba sidoo kale App Store-ka